أمر هلك وحكوا ديار سراكيش قوم ارتفعوا له ترى وسلام ترى قتل دياره sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dawladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinka sababta ay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waa soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan Soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhawaad 30 sano idinku waxaad ka soo wareegteen urur Soomaaliyeed oo la sunna la yiraahdo oo dalkan ka soo shaqeeyay oo amni ka soo shaqeeyay oo maamul soo ahaa laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama la idin qarameeyay xuquuq aad leedihiin la idin tababaray aad labisantiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacadan aan idin la hadlayo waxaa la idin kula xisaabtamayaa waajibaadka la idin ku leeyahay meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dawladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin mana aqbalayo sidaas daraadeed waxaa laga rabaa General Mas'uud iyo General Qooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la islaama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqeynay qof u shaqeeyo marka dambe on ku soo laabta halkan marka qaarkiin waxaan rabaa inay xarar dheere igu yeeraan qaarna ceel dheer igu yeeraan qaarna ceel buur igu yeeraan qaarna ceel garas igu yeeraan dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayay dhulkii dawlad goboleedka midaysnaa dhulkii ciidanka xoogganaa dhulkii soo celiyay sharafta Soomaaliyeed dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan rabaa halkan waa mahadsantiin